السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واتحانيه لما بحي la dagaalanka nuurka qaybtiisa sideedaad ku soo dhow channelka walaal ugu horeysay ururka guula taaban kale uu ka gaadhiga howlgallada dhaqan ee uu gudaha ka fuliyay madaxda ururka ayaa igu soo hambaliyay sida howlkarnimada iyo nafuridda leh ee aanu dhaqaajiyay howlaha 80 sano taagnaa gacan gudeed Paul ayaa sidoo kale ii fidiyay casuumaad mahadnaq iyo maamuusid isugu jirta oo la igu qaban doono jasiirad ku taal Karibiyaanka anoo farxad iyo qaweynaysiyaada ayaan u dhoofay jasiiradii la igu casuumay Addis Ababa ayaan sii maray waxaan muddo saacada ku hakaday Dubai halkaas oo aan kulan kula qaatay ergeygu baaragigu soo xidhay ergeygaas oo magaciisu ahaa Sir William Don ayaa isku ka sheegay in uu ka tirsan yahay waaxda dhaqanka Mailkut ee shirkadda khubaro ah oo qaadata qandaraasada lagu dadgadinayo deegaamada laga helo saliidda qaydhiin oo ay Soomaalida qudheedu ay ku tahay hodan Sir William wuxuu sheegay inay heleen qandaraas dahabi ah oo la doonayay in laga fuliyo dhulka Soomaalida inta aan la gaarin xilliga loo qoondeeyay in la soo saaro shidaalka qorsheysan 2024 wuxuu sheegay in isaga iyo aniga ayna midayso hal yool oo mid ah laakiin inagu kala suntan mabda iyo manfac wuxuu yiri adiga waxa ka shaqaysiinay waa mabda aad aaminsan tahay ee aad la wadaagto walaalahaaga Dark Marow halka anaga uu nawado damaca saliidda qaydhin ee ceegaagta ee laga helo Soomaalida aqoonsigiisii waan uga tagay isagoo sheegay in mashruuca qiimeynta wajiga hore uu bilaamayo sanad kadib marka uu iga baahan yahay gacan uu ku guuto shaqada uu ka qaban doono dhulka Soomaalida waan ka gudoomay si keesa ayaan u kala dhaqaaqnay Sir William waxaan sii watay safarkaygii oo aan ku beegsanay jasiiradda Barbados diyaaraddu waxay ku duulaysaa joog sare oo dhan 14,000 feet xawaare sare way ku socotaa hawada waa degdegtay diyaaraddu garir ayay sameynaysaa taas ayaa diiday in aan hurdo la xara seexdo iyadoo ay hurdo badan hayso hadba kursiga aanu iskala bixiyay ay gabar qurxoon oo ku labisan dharka hablaha adeegtooyinka diyaaradda ayaa codadiga oo dabacsan ugu tiri mudane adoo mahadsan u soo toosayda ay ku soo direen walaalahaaga Dark Marow markaan madaxa kor u soo qaaday si degdeg ah ayaan u arkay gabadha oo cadaynaysa oo idul taagan xeedha cad oo dul yaalo ubax yar oo cas mindi iyo buug yar oo madow waan ka gudoomo waxaan ku huri yaa igu ka soo dhiibay waxay tiri walaalada waan ku halcaliyay anigoo doonaya in aan ka xaqiijiyo shakhsiga siday waxay igu tiri Lawrence waxaan weydiiyay waa kuma Lawrence waxay tiri waa kabtanka duuliyaha koowaad ee diyaaradan aad saaran tahay su'aal dama ma weydiin ee aan fariirsan ayaan ku uri waad mahadsantihiin labadiinuba markay tagtay waxa agteeda soo fadhiistay nin dhar madow iyo muraayad madow xidhan oo dhalinyar xoogan ah oo muuqiisa aan kala saareen 40 jir iyo inuu ka weyn yahay waxaan kali ku ahaa qaybta VIP-da diyaaradda oo badanaa leh 4 ilaa 6 kursi oo dad khaas ah loogu talagalay ninkan iyo xaaladan igu soo biirtay ayaa jawigayga bedelay buuggii ayaan furay anoo cabsi argagax nafsideed dareemaya bogga koobaad waxaa ku taalay magaca ururka Dark Marow oo ay hoos kaga taalo sumada maska iyo lafta dhuuxa madow oo u taagan oo isku talaab ah bogga labaad ayaan u dhaafay waxaa ku qoran Blood Brothers oo farcas cas oo sida dhiigga da'ayo qoran waxaan sii kordhay cabsidii aan iyadoo ay korodhay neefta iga gurmaysa iyo garaaca wadnahayga oo xoog u shaqeynayay ninkii kursiga agteeda fadhiyay ayaa igu yiri aad baad u neeftooraysaa ee maxaa jira dhibaato wuxuu ii sii raaciyay ii sheeg aan ku caawiye talayaabka lahayd ayaa waxay ahayd inuu hadalkaygu sii daray waxaan agtaada u fadhiyaa inaan ku caawiyo weedhan dambe ayaa iga dhigneed waran la igu dhuftay anoo qarsan kari la cabsida ayaan ku iri mudane wax walba way wanaagsan yihiin uu sii jeestay annabuuga ayaan soo rogay bogga saddexaad oo ay ku qoran tahay hambalyo waxa maskaxdeeda ilbiriqsiyo ku wareegay ma waxay kugu hambalyeynayaan guushii aad gudaha ka gaadhay waxaan doonay in aan sii ogaado sababta si degdeg ah ayaan u soo rogay bogga afaraad bise waxaa ku taala darajada 23aad ayaa lagu dalacsiiyay ee degdeg u korsalaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh